malka laga gabiyo madal bay martidu ku macaantahay maanse ii dihnayd oo aan maanka iyo maskaxdii ka dayay balan meeriyo aan idiin marshee mudaniyo marwaba dhagihiin mar qura ii muquuniyo maqlay erayadeed muddo aad u dheer iyo maalmo badan bardhaxiya habeen waxaan meeranoon mahuraanadii iyo mooro odayadeen maskax raadiyaan maamulkeennan qaran miisaan mugliya mudnaayaa kuloo manfac noogu tari maantaba helloo miidhiyo xulkii waxa ay mucdii ku minguuriyeen gebilay mugweyn magacaaga bilan ninka kugu matalaya ee muujin karaa waa maxamed bookh maamuus tixdan waxay tidhi mar kale majariye xilqaad muran lama gashay masalooyin baa mas-uul lagu xushaa ma masuugayee balan muujiye maskax iyo ninkii muruq kuu huree dalka maalgashee muuna iyo bilic ku mariimaybaa maamulka iyo xilkana milgahaaga wacan iyo waxaad mudnayd madalaha shireed kuugu marag furee gebilay mugweyn magacaaga bilan ninka muujin kara ee kugu mateli waa maxamed bookh rag hore oo xusbigaa ka hadlayay oo waxaa jiray kaarayaal silsiladu go'an tahay oo meelaha faqashti kaga tagto oo dhaqaaqba silsiladu oo dadka loogu hanjabi jiray baa jirta waa nin silsiladu go'an tahay baa la keenay xusbigan magaranaysa ayaa kulmiye laakiin nin anagu waxaanu wadnaa nin silsiladihiisii wato qorigiisii wato dhuuntiisii wato oo qarxiyihiisii wata maanta waxaanu u soo doornay oonu u sidnaa ninkii agoonnimada xisbiga ka saari lahaa gobolka gebil markaannu aragnay inay siyaasaddii indhalaada ay dee siyaasaddu dirawal bay leedahay dirawalkii iyo waxaanu isla soo doonannay iyo gaadhigii xusbiga waddani gebiley wuxuu ku ahaa agoon aqal oo ku nasta kumuu lahayn maanta aqal baannu haynaa musharax baannu haynaa wax kastaannu haynaa hanaga guddooman cid alla cid uu wax ka sugaya haba yaraatee ma jirto kaambeyn maanatirkiisiiyo dhaqaalihiisaba jeebadda ku haystaa xisbigana wax badan buu tarayaa annaguna ku daba soconnaa sannadiyo badhuu maal hadba meel u baxayo inta beeshuu degaysay badi iyo galbeed iyo buushaaliyo albaasiya baddii baanu sahan tegey xidigaha badhkood iyo buntjabaanu eego ninkii beesha wadi lahaa baarlamaanka geli lahaa baxsanow maxamed iyo bookh baanu soo xulay nimay baahi keentay maaha ninkiish badhan haysta maaha beenaale kataaba maaha aqoonyahan weeyi kacay da'diisuna kaamil tahay kumbani weeyaan hanti leh islaamkooda loobsatiyo odayga aan kici karayn haddii kiisuu ka galo nimaana ka dhahayninoo weliba u kacaya weeye ma khajira doorashooyinkii ugu dambeeyey waynu ka jawaabi doonnaa innagoo gacmo haysaysanna oo waddan ahaan midaysan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaynu nasriga iyo guusha baarlamaanka iyo ta madaxtooyada iyo ta golaha deegaanka waa badsanno biidni illaahi kariim musharax maxamed cabdilaahi bookh oo aannu miisaan ahaan dad badan imminka halkan isku raacsannahay aad iyo aad baannu ugu hanweynahay inuu halkiisa ka soo bixi doono codna uu naga heli doono bookh waannu soo dhowaynaynaa qabiibna dee in badan buu ahaa aanu qandi haysane qandiyaal badan buu maanta soo helay wasalaamu calaykum waraxmatullahi gebiley qabiibkaa ammaanaysaa foodduu gelin waay cidda ka haysatana idinkay ahayd kol haddaad sii dayso waa mahadliyahay geed irgin la yidhaha baa ka bixi jiray meelahan maxaan ku dhahdaa laas calaar korkiisa iyo intaa la arki jiray geedkaa irgin baa la yidhaha irgin geelu hadduu cuno ku go'aa haddaan la arkaynin deedna waxaa la yidhahdaa geelu qolfu arku yidhahda geeljiruhu irginay lagu arag kulmiyow lagu arag soo maanta ma maraysaan odayaasha intaa la-eg ee caaqilada iyo jiifafka iyo dhallinyarada iyo aqoon-yahanka iyo qurbajoogga iskugu jira oo gelbinaya
nin isaguna qiimo leh oo gobolka qiimo ku leh oo degmada qiimo ku leh oo jaararka qiimo ku leh galbinayaa horta waa la mahadii horta gabiiley waa ohio ohayona waxay kaga jirtaa dalka maraykan waynu garanaynaa qiimahay doorashada ku leeday gabiileyna waa kaadhka lagu kala wingareeyo waana kii waa mar haddii aydun maanta xisbigii keenteen gobolkii lagu kala badinayey ee majority vote-ka ahaa taa laftigeeda ceelalya waa guusha iyo xisbigu inuu rajada shacabku imanayo talada dalka waxaanu idinku soo dhowaynaynaa xisbi ballaadhan oo la wada leeyahay oo reer somalilan ah oon curfi cadaawad cuqdad iyo ciil oolin oo aan ahayn sida xisbiga kulmiye ka guuraaga oo kale ah waxaanu idin wadnaa xisbi rajo leh mustaqbal leh reer somalilanna doonayaa inay ku wada noolaadaan nabad walaalnimo badhaadhe iyo horumar gacmo furan ku soo dhowaada dhallinyar ahaan booq waanu berber taagannahay waa dadka aanu doonayno inay muunad noqdaan waxaanaanu ku dari doonnaa dhallinyaro kaloo qiimalo xisbiga ka sharaxnayd ayuu isna qayb ka noqon doonaa waana mahadsanta maanta xildhibaankana awadaan ragga la socda iyo miisaanka ka muuqda ayay ka muuqataa inaanu dhul dhacaynin maadaama aanu nahay niman odayaashii ka soo jeeday beesha habar awal ee xisbiga waddani ku jirtay ee eegta odayaasha dadkii wixii musharaxiinta annagoo xisbiga eegayna dantiisa ciddii cod u keeni karta aanu mar walba eegaynonu qaadanaynay cid noo timaado oo milgaha aad leedihiin leh kolkaynu taxdiiqda ka hadlayna idinkuma ammaanayno waa mid dhaba milgahada aad leedihiin leh oo tayada leedihiin leh oo tirada leedihiin leh oo wallaahi noo yimid inaanay weli jirin waxa magaciisu haystay inankana wadaane booq anugu booq hore umaan arag laakiinse marka dagaalka la galo sananka ciidankaa hogaaminaya ku jabiya magaciisu meel buu ku qoran yihi horta markanu doorashadii dhaweyto ku jirnay inankaa booq meelnu ka galaabaanu weynay oo sanankii meesha naga jabiyey ee doorashada la dhagaala horta ogaada sawirkiisa maanta igu horraysa waxaan u mahadnaqayaa dhammaan beelweynta xareed bare ee si aan kala lahayn dhammaantood iskugu raacay inay maanta ii soo sharaxaan inaan u noqdo baarlamaanka aan uga noqdo gobolka maroodijeex waxaa kale oon halkan uga mahadnaqayaa dhammaan xisbiga waddani iyo madaxdiisa oo intoodii badnayd maanta halkan aan ku sugannahay mahadnaq ballaadhan ayaan iyagana halkan uga mahadnaqayaa waxaa loo baahan yahay inaynu ka cibro qaadanno qaladkii horeynu galla inaynu ka cibro qaadanno inu maanta aynu sidaa isku raacnay iyo duubduub oynu baarlamaan hadday noqoto gole deegaan hadday noqoto madaxweyne hadday noqoto aynu sidaa aynu iskugu raacnay aynu maanta iskugu raacno ayaan halkan diyaar ugu nahay kulley xafladdii weyneed way noo dambaysaa waynu is odhan doonnaa wax badan waynu is odhan doonnaa insha allah mahadnaq aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa beesha iyo xisbigaba iyo gobolkan ka sharaxanayba dhammaantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu